waxaad la socotaan in dadkeennu uu weliba dadkii isbitaalka la dhigay 18 jeer ayaa dadka Soomaalida ahi ay ka badnaayeen dadka Norwegian ah oo isbitaalka la dhigay. taasina waxay ku tusaysaa in dadku ay u yihiin dadka Soomaalida ah ay cudurkan u nugul yihiin. magacaygu waa Cabdi Geelle waxaan ka shaqeeyaa maxadka caafimaadka dadweynaha ee dalka Norway waana maxadka u xil saaran ka warqabka cudurka coronavirus-ka oo aad la socotaan inuu adduunka oo dhan ka dilaacay. waxaan cudurkaas dadka Soomaaliyeed ka wada hadalay marar badan haddana waxaad wada ogtihiin in cudurku uu ku soo laabtay oo soo laba kacleeyay oo ku soo laabtay dalka Norway khatartiisana uu leeyahay. haddaan wax yar idinka iraahdo xaaladaha soo cusboonaaday waxaa wiigii hadda la soo dhaafay wiigii ka horreeyey waxa uu cudurku ku dhacay 377 qof. wiigii hadda la soo dhaafayna wuxuu ku dhacay 728 qof. sida aad halkaa ka aragtaan waa laba jibaar wiigii la soo dhaafay iyo wiigii ka horreeyey. dalkana waxaa ka dhacay outbreak tiro badan oo ilaa 8 meelood ayuu cudurku uu ka dilaacay. meelahaas uu ka dilaacayna waxay ahaayeen xaflado la isugu yimid, aroosyo, meelo cibaado oo la isugu yimid, meelo public ah oo mataqaanaa ay ku jiraan jaamacado iyo isu imaatino private intaba. magaaladan Oslo ee dadka Soomaalida inta badan ay degan yihiin waxay ka mid tahay meelaha cudurku uu aad ugu soo batay. maalintii celcelisi ahaan cudurku waxa uu ku dhacaa ilaa 16 qof magaaladan. marka aad fiiriso dadka Soomaalida iyo sida ay isugu yimaadaan iyo sida aysan taxaddar badan u lahayn waxaa ku filan hal qof oo cudurku ku dhacay oo maqaayad yimaada ama masaajid yimaada ama meel kale oo dadku ay isugu yimaado oo xaflad ah oo halkaas dadkii cudurka ku qaadsiiya dadkiina ay guryuhu u qaadaan. waxaad la socotaan wayfkii koobaad ee cudurkan in uu dadka Soomaalida aad u saameeyey, meediyaha iyo dalka oo dhanna aad arrinkaas looga wada hadlay. markaas waxaa la inoo sameeyey cududaar oo waxaa la yidhi dadkan war kuma gaarin, luuqadooda kuma gaarin, laakiin hadda haddii tiyoo kale ayayna ku soo noqoto cududaar dambe inayna helayn way caddahay. waxaan doonayaa marka dadka Soomaalida ah inay taxaddar aada muujiyaan. waxaad la socotaan in dadkeennu uu weliba dadkii isbitaalka la dhigay 18 jeer ayaa dadka Soomaalida ahi ay ka badnaayeen dadka Norwegian ah oo isbitaalka la dhigay. taasina waxay ku tusaysaa in dadku ay u yihiin dadka Soomaalida ah ay cudurkan u nugul yihiin oo ay qabaan jirrooyin kale ama dhiigkar ama neef ama cudurro kale oo keenaya in qofkii marka uu cudurku ku dhaco cudurku uu ku xumaado. taasina marka inaga waxay inoo ka sii dhigaysaa in aynu mas'uuliyad dheeraad iska saarno inaynu cudurka ka fogaano. marka waxaan kula talinayaa dadka inay xafladaha ay joojiyaan xafladaha waqtigan cudurku inuu sii kordhayana waa la rajeynayaa oo qabowgii baa bilaabanaya. inay xafladaha iska ilaaliyaan, inay gacmaha iska dhaqaan, in haddii ay public transport qaadanayaan ay afka xirtaan ama ay tegayaan meel dad badan isugu imaanayo, in gacmaha la dhaqo marar badan. qofkii aan mataqaanaa markaa biyo haysanin inuu alcohol isticmaalo, inay isu jirsadaan dadku mitir ilaa 2 mitir. in laga taxadaro meelaha la isugu imaanayo ee dadka Soomaalida ah ay leeyihiin in ay taxaddar badan ka muujiyaan oo meeshooda ay keenaan alcoholkii mataqaanaa dadku gacanta marsanayeen, hubiyaan dadku inay isu jirsadaan 1 mitir ilaa 2 mitir. waxaad ogtihiin meel cashuuro lagu dhigayey oo dad badan ay isugu yimaadeen oo dadkan islaamka ah ee shiicada ah in uu ka dhacay outbreak. kabacdi in la yidhi dadkii isu keenay in la dacweeyo dacwo lagu furayo hadda ay dacwo ku socoto. marka dadka Soomaaliyeed ee goobaha ganacsiga iska leh inay iska ilaaliyaan arrinka isaga oo ay ka taxadiraan cudurkaas inuusan ku dilaacin goobahooda. waa idin mahad celinayaa, waxaana idin rajeynayaa in Ilaahay cudurka idinka nabadgeliyo. waana idin salaamayaa.